wuxuu daba socdaa kii aan soo saarnay 30kii bishii November kaas waxaan ku cadaynay sababtaan u diidanahay doorashada iyo boobka ku bilaabatay waxaan cadaynay qodobada ka dhigaya boob in habraac dhinac marsan tahay odayaal jirin ergal xareeyay jirin guddi qabiil uusan jirin maantana waxaan soo saarnay sida lagu sixi karo oo ah in odayaashii dhaqanka la garanayay 135 ahaa la soo celiyo guddi beelaadka loo dhaafo ergada ayaga ay xulaan ergadaas la hubiyo la diiwaan geliyo wacyiga la faafiyo dadku ay si xor u tartami karaan malxiis iyo cid ku soo xiraya inaysan jirin kor joogto iyo saxaafadda madax bannaan ay joogto markaasna fursad siman ay xildhibaanada dadka u tartamaya dumarka ay helaan qoondada dumarkana in loo sameeyo halbeeg lagu xadido oo aanan wax dad lagu hor istaagaya aysan noqonin cabdiraxmaan oo sidaas sheegtayba markii aad la kulanteen ra'iisul wasaaraha ayaad bayaan soo saarteen ra'iisul wasaarahuna wuu hadlay wuxuu sheegay inuu tallaabooyin qaadi doono marka degdeg baa idinku jira ma lisoran karaa horta kuraastii la boobay 22 ka ahayd wax laga qabtay ilaa hadda ma jiraan marka laga reebo 2 kursi oo la yiri doorashadooda ha lagu celiyo intii kale kuraastaas kale waxay dhamaan lama arko kulli waa kuraas abraacan loo marin oo boob ku timid waaye waxba laga ma qabanin haddana waa lagu sii socdaa marka anaga waxaan u baahanahay doorashooyinka inta la hakiyo la isaga yimaado waxa qaldan la soxo doorashooyin jadwalkeeda isku mid yahay isku waqti bilowda isku waqti dhamaada in la sameeyo oo siday ku dhacayaan habraacooda la isku wada raacsan yahay oo loo wada joogaan rabnaa ee doorasho tashiilaho qofka madaxda goboleedka jooga maalinba 2 ama 3 ama 4 asaga jeebkiisa iska soo saaran haddana iska joogay haddana 2-3 soo tuurayo soo rabo oo ugu tasarufayo ma rabna annaga idinka lahaa hal qabto doorasho oo waliba hal dedejiyo markay doorashadii bilaabatayna hal hakii ayaad leedihiin marka soo idinka uma muuqanaysaan dad dhan kale leh doorashada hal dedejiyo annaga niri sax walaak hal boobo ma dhihin annaga waxaan diidanahay walaal waa boobka doorasho aan oday lahayn dhaqan oo la aqoonin oo ergal lahayn oo cid loo xariir ergada aan la garanayn oo xildhibaano ku tartama aysan jirin oo har cad la isboobaya meesha ka socoto marka annaga doorasho waa rabnaa midowga musharaxiintan wuxuu u taagan yahay oo loo aasaasay doorasho hufnaan iyo leh daafurnaan in la qabto oo natiijada lagu qanacsan yahay laakiin waxa meesha ka socda waa boob annaga marka waxaan ka hadlaynaa waxa waaye boobka in la joojiyo oo doorasho la qabto kuraasta aad leedihiin waa la boobay qaarkood guddiyada ayaa ka hadlay oo waxay go'aamiyeenba in dib loo celiyo marka hawshii oo socota miyaad idinka doonaysaan in haddana wax kale lagu daro ama aad doc faruuraysaa guddigu 2 kursi kaliya celiyeen kuraasta dhan la soo dhacay meesha kursi habraac loo marayba maba jiraba guddiguna qaar uu dooranaya qaar waa ka tagaya annaga waxaan rabnaa halbeeg oo midkan ku doortay halbeega kuwa kale uu uga tagay inuu noo sheego kaliya rabnaa oo kanaan ku dhaganahay nooma cadayni sababta kii asaga naftiisii amarkiisii ama la yeelayninba oo guddigii xubin ka tirsanaa leh idaacad inta soo istaagto idinka warsateen waxba kama jiraan warka ka soo baxay guddiga marka guddiyadiina waa iskhilaafsan yihiin dhexdoodii goboladiina boobaa ka socda doorashada meesha ka bilaabay war hal ku yimaado ayatiinka dalkaanu lama boobi kare hal isku yimaado wixii hal saxan annaga taagannahay sida aad haatan ku doodaysaan in wax la boobayo oo xildhibaano iyo dad musharaxiin ah laga hor istaagay inay tartamaan laakiin dad kale waxaa jira ku doodaya in arrintan ay soo bilaabatay markii la dooranayay aqalka sare oo xildhibaano fadhiyey loo diiday inay tartamaan markaasna waad hambaliyeynayseen maxaa waagaas saxsanaa oo haatan khaldan su'aal fiican waaye 2 arrinaaba jirtaba dowlad goboleedka madaxweynaha ka taliya maadaama aqalka sare dadka ay matalayaan dowlad goboleedka habraaca iyo meeshay waxay ku qorteen inuu madaxweynaha dowlad goboleedka magacaabi karo cidda u tartamaysa sanadka aqalka sare u tartamaysa magacaabi karo mandate asaga la siiyay way ku takrifaleen sax waay sida hadda aad sheegaysa annaga si aan naloo dhihin doorashadii diidan yihiin hal la bilaabay lahaayeen waa la bilaabay madaxweynaha dowlad goboleedka awood u lahaa wuu qoray annagoo u jeedno si hore loogu socdaa ugu aamusnay waa run laakiin madaxweynaha dowlad goboleedka waxaa ka qaldan kursiga aniga beeshayda ay leedahay beeshaydaan ku matalaa hadday ii diidayso iyo hadday yeelayso ayadaa iska leh haddii marka talooyinkaas aad soo jeedinaysaan la aqbali waayo maxay tahay tallaabada xigta aad qaadaysaan annaga waxaan fursad siinay in wada hadal iyo sixitaan la aado haddii la diido marka doorasho in la qabto xalaal ah oo lagu tartami karo waa la waayey soo maaha waxa dalka danta ku jirto sidii sharciyad lagu soo celin lahaa doorasho lagu qaban lahaa ayaan ka tashanaynaa dadka Soomaaliyeedna ka talagelinaynaa waxay dadka Soomaaliyeed talo ku soo jeediyaanana aadaynaa maantana noogu dambeyskaan ka soo saarnay haddii ayaga sixi waayaan doorashada inaan mar dambe kala hadalna wax la yiraahdo doorasho